saldhigo goyaha ka joogsada ciidamada Soomaaliland ma yaqaanaan gardarrada hase yeeshee cid kasta oo ku soo xadgudubta qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xuduudaheeda waxa ay ka abaalmariyaan gardarradaasi ay duulaanka ku soo qaadeen ciidamadu oo haystaan niyadista shacbiga iyo taageeradooda waxay had iyo jeer heegan u taagan yihiin difaaca qarannimada waa kuwa aan habeen seexan had qabowna aan dubaaqa gelin waa kuwa adigoo hurdaa habeen kasta kugu taagan iyagoo aan fadhiyin jiifin ee qoriga dhegta ku jira oo taagan ilaa laga ka fadhiyo ciidamada kala duwan ee Soomaaliland qaybahooda kala duwan mid waliba hawl gaara ayuu qaabilsan yahay ciidamadaasi hawlaha gaarkay ay ku yihiin kuwa laga gamay oo maanta intii Soomaaliland jirtay aan lagu tilmaami karin in wax dayici ay ku yimaadeen waxaan idinku soo gudbinayaa heesta ciidanka
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي يوسف عبد الله محمد يوسف waxaan halkan ka hambalyeynaa dhammaan shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidan weynaha qaranka ciidamada bilayska ciidamada degdemiska dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa shacbiga jamhuuriyadda Soomaaliland oo leeyahay kullu caam wa antum bil khayr ilaahay 18 May xigta bash barwaaqo ictiraaf aynu gaarsiinay waa maalintii la soo noqonay xorriyadeena iyo calankeena aynu u geynay nimanka xubnaha koonfureed u geynay waa maalintii la soo noqonay geedkana waxa weeyaan geedka nabadda ee Soomaaliya ay ku nabad iyo caanamaashay ee Soomaaliya ay ugu horumartay ee Soomaaliya ay ku barwaaqowday ee Soomaaliland ay horumar ku gaadhay لا إله إلا وحلا شيء كرمها ما نسوا كوبي كرو وحلا شيء كرمها عاد بانو في الحسن جيت كنوا جيت وحنا وصفنا هذه دقاي إمك هذا إحنا قدو بس جيت كنا بدأ سومالي يهوري مركا سومالي الصومالي الواسطي أودياش نو أودياشي سومالي ركض تاجوي إيه بدك تسوي خيار بدي واحد وفد إذا بقول كيبا ما تقول فردا waxaan ugu baaqi lahaa ummadda Soomaaliland marka horeysa guul iyo gobonimo waa heshin waa guulaysateen gobonimona waa haysataan nolol wanaagsan iyo ciidan qaran iyo dawlad iyo madaxweyne ku xigeen ina waa leedihiin dawladda Soomaaliya oo dhisan baa tihiin dalkiina horumar ka sii wada oo sidaa kor ugu soo socdo iyadoo ayna u kala harin bulshada guud ahaan Soomaaliland xuska dalbaadega 18 May ayaa waxa hadda midtayda ku sugan ururka naafada ee Soomaaliland iyo ka qayb qaadanaya xuska 18 May wala waxaad iga warantaa dareenkaaga maadaama aad ka qayb qaadanayso munaasabada qaran ee xuska 18 May bismillahir rahmanir rahim kulli aam wa antum bil khair Ramadan kareem shucuurteeda alxamdulillah shukri waxaan ilaahay ka baryayaa bil Ramadan weeyane Soomaaliland si degdeg loo ixtiraafo iyo qabiilada Toronto ya ilaahay ka baraya Soomaaliland sinaan iyo cadaalad horumar ilaahay garasiya ilaahay uga baraya wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dareenkayga waxa inaan gurgurto mooyee wax kale ima harsana assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa Khatra Cilmi Yuusuf maanta aad baan u faraxsanahay waa maalintii xornimadii Soomaaliland ay dib ula soo laabatay sanad guuradii 28aad alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay baa igu simay inaan 28ka sanaba waxay tahay aan joogo aan dabaaldigeeda ka qayb galo maantana waaba maalintay igu wasay farxad badnayd maanta maalay ka wacan tahay garanba maayo waxaan aad uga qiirooday oo ilma isku kay soo taagtay dhalinyaradii jaamacadaha dhamaysay ee shaqo qaran soo dhamaysatay iyadan cidi khasbin dirayskii intay soo xidhaan halka horteena maray ayna miyahba laba laha waa wax lagu faamo tiknikadeeni halka maraysay waa wax lagu faamo dadkeenu sida uu u jecel yahay Soomaaliland yaani caruurtii dhalatay waqtigii aan dagaalba jirin baa aad u jecel waa wax taariikh ah waa wax qurux badan aad baan faraxsanahay aad iyo aad baan faraxsanahay warahmatullaahi wabarakaatu magacaygu waxa la Saciid Ibraahim Cabdi markii goorisay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya aad baan u mahadcelinayaa markii goorisay uu noo sameeyay shaqo qaran aad buu maasay wallahi wax weyn man ka faa'iideynay taan tababarka ku jirnay militarigan la tababarkana soo xidhay si wanaagsan baa wax u qaadanay tii tababarka ku jirnay aad baan u maasay xuska wallahi anu warta waxa la daayay Soomaaliland baa la daayo maanta aad baan u faraxsanahay suxuuteeda lama soo koobi karo